magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo aad markaasi u xoogan oo ay wadaan mucaaradka kuwaasoo isugu jira dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo kuwo markaasi military laakiin dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay qaaday tallaabo aad u culus oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ay halkaasi ka wadaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in gebi ahaanba ay xirtay waddooyinka soo gala magaalada muqdisho ee ka yimaada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyadoona markaasi qorshaha dowladda federaalk soomaaliya lagu sheegay inay doonayso inay xakamayso ciidamada iyo saraakiisha doonaya inay muqdisho galaan safka mucaaradkana ay ku biiraan ciidamo aad u xoogan oo kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo gaadiid dagaal ayaa la geeyey dhammaan waddooyinka bannaanka magaalada muqdisho laga soo galo iyadoona markaasi lagu amray ciidamada halkaasi la geeyey inay gebi ahaanba markaasi celiyaan oo ay hor istaagaan ciidanka iyo saraakiisha doonaysa inay gudaha u galaan magaalada muqdisho waxaa la soo warinayaa in ciidamo aad u xoogan oo fara badan ay goor horeba ka soo baxeen furimaha hore ee dagaalka ee shabeellooyinka kuwaasoo markaasi safar u soo ah magaalada muqdisho doonayana 15 Maytaan la gaarin inay xaadir ku ahaadaan duleedka magaalada muqdisho marka 15 May la gaaro oo saacadu isbedeshana inay gudaha u galaan magaalada muqdisho halkaana ay ka bilaabaan dhaqdhaqaaqyo military oo ay kaga soo horjeedaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale qorshihiisa ku aadan muddo kordhinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankeeda markaasi u muuqata inay doonayso ka hortagga qorshaha mucaaradka ee 15 bisha May ay damacsan yihiin labada dhinac ayaana u muuqda kuwa markaasi mid kasta oo ka mid ah uu doonayo inuu meel mariyo qorshihiisa ku aadan sidii uu markaasi uu xukunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka uu dhammaado ay mucaaradka ay uga dhigan lahaayeen iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa oo doonaya inay xukunka sii adkaystaan tallaabo kasta oo suuragal ahna ay markaasi qaadaan gudahaan wixii ka soo kordha xiisadda muqdisho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like share aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo